maalin wanaagsan akhyaarta hawada nagala xiriirtay halkan oo bartaan YouTube ku leenahay oo aad maalin walba nagala socotaan maantana waxaan kusoo qaadan doonaa dowladda Kenya waatay ku dhawaaqday madaxweynaha William Ruto inuu yahay madaxweynaha 5 sano ee soo socoto dibadbaxyo waaweyn ayaa ka bilowday oo rabshado wato xalay ka dilaacay magaalada Kisumu ay ku xoogan yihiin taageerayaasha musharaxa laga adkaaday ee Raila Odinga marka banaanbixii waa sii kululaaday rabshado aad u badan iyo taayiro la gubayna way sameeyeen taageerayaal aad u careysan ayaa soo buuxiyay wadooyinka iyaga oo dhagxan tuuraya isla markaana ku doodayay in doorashada lagu shubtay iyada oo ay booliiskuna ay ku fureen sunta gaaska ka ilmeysiisa dadka dad aad u fara badan ayaana isheeg ay halkaas ugu soo baxeen taageerayaasha 77 jirka ayaa ugu yeeraan Baba ayaa sheegay inay ka careysan yihiin in Odinga markii shanaad looga adkaaday doorashada madaxweynaha dalka Kenya Odinga oo xilligan uu taageerayay madaxweynaha xilka kasii degay ee Uhuru Kenyatta ayaa weli ka hadlay natiijada lagu dhawaaqay hase yeeshee wuxuu leeyahay Uhuru Kenyatta in hoos ay ka guuxaya oo wuxuu leeyahay xaaladdu adag tahay ninka la yiraahdo Raila Odinga oo hadlay wuxuu dhahay wax ka jira malahan natiijadaasi waana lagu shubtay oo aad iyo aad ayaa la qiyaanay marka hase yeeshee waxa uu dadka ay ku doodayaan in Raila Odinga markaan la fashilay kadib markii la qiyaamay muddooyin fara badan ay ugu horeysay 2007 2013 2017 iyo hadda oo 2022 ah Raila Odinga waa ku fashilmay markii afraad ama shanaad la dhigi karaa inuu dalka Kenya madaxweyne u noqdo dadka qaarna waxay leeyihiin ninkan maba u qornaba oo wato nafta iskaga qaaday marka waxay leeyihiin ilaa inuu helay ahayd markaan waa markii odayga oo Baba uu ku ritaar garay lahay marka taas ayaa dhalisay marka rabshado fara badan qoomiyada ay dad aad u fara badan hadda kor ku dhinteen oo dagaalo 100 qof ku dhinteen waagi hore waan la soconaa haddana xaalad mu wanaagsan oo waxa laga yaabaa in dhibaato kale ay ka dhacdo marka waxay leeyihiin waana la qiyaamay Master Colonies Odoyo nin la dhaho oo 66 jir ayuu u doodayay wuxuu yiri aad ayaan noo qiyaanay mana yeelayna marka dukaano badan oo ku yaala Kisumu ayaa xalay xilli horeba la xiray iyadoo laga cabsi qabo in ay halkaas ay la bilqeysto waxaana lagu soo waramayaa in ugu yaraan hal dukaan la dhacay oo laga boobay hantidii iyo wixii yaalay dowladdan waxay sheegaysaa in ay ka jawaabi doonto in ciidamada booliiskana aad iyo aad ay u dadaaleen oo xalay dadka ilmeysiisa ay halkaasi ku rideen oo dadkii ay kala buriyaan isku dayeen laakiin waa la xakameyn waayay in badan oo kamid ah dadka Kisumu ayaa filayay in Odinga ku guuleysan doono iyaga oo rumaysnaa in ugu dambeyn uu noqon doono madaxweynaha dalka Kenya maadaama muddooyin fara badan oo ku fashilmay sidoo kale xaafadda Kibera ee Nairobi oo ay ku xoogan yihiin taageerayaasha Odinga ayaa iyadana laga dalbaday inay doorashada lagu celiyo oo la saxo dadka aad iyaga u careysan waxay leeyihiin doorashada waa in lagu celiyaa maadaama khiyaano fara badan isdaba marin ay dhacday codadka Baba waa la xaday ayuu yiri mid ka mid ah dibadbaxayaasha Georgia in aad u been sheegtaan dadka Kenya waan ogahay in Baba uu guuleystay ayuu yiri Eliud Omolo nin la dhaho oo ka mid ah taageerayaasha Odinga natiijada rasmiga ah ee guddiga doorashooyinka ay muujinayso in boqolkiiba 50.49 uu helay ninka la yiraahdo William Ruto kan kalena uu helay boqolkiiba 48.85 marka natiijadaas lagu qanacsan ayaa la leeyahay in xaalkeena uu ka sii darayaa maadaama isheeg ay banaanbaxyo iyo fowdo fara badan ay bilaabatay William Ruto oo asagana ku guuleystay madaxweynaha dalkaasi Kenya waxaa la leeyahay farxad aad u weyn ayaa ka muuqato marka guddiga doorashooyinka waxay leeyihiin muran kama taagno oo doorashada sax ayaa loo tiriyay marka guddiga waxay ku dhawaaqeen in William Samoei Ruto uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha Kenya wuxuuna helay boqolkiiba 50.4 codadka la dhiibtay waxa uuna ka adkaaday Raila Odinga oo helay boqolkiiba 48.8 saas ay guddiga ku dhawaaqeen gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in William Ruto yahay madaxweynaha cusub ee la soo doortay ee dalka Kenya Ruto ayaa guushiisa ka hadlay ayaa sheegay in dhammaan awoodda madaxweynaha waxa ay u sugnaatay mahad ay u sugnaatay shacabka Kenya isla markaana uu ka shaqeyn doono sidii dalka horey loogu qaadi lahaa oo aysan dhibaatada laga gudbi lahayn dhibaato dambe aysan jiri doonin sidoo kale wuxuu sanadkii 1966 ku dhashay deegaanada Sugoi oo ka tirsan gobolka Rift Valley ee dalka Kenya Ruto waxa uu ku soo koray nolol adag xitaa wuxuu iskuulka aadi jiray isaga oo kaba kala kaan ah wato kadib xaaladda oo ku adkeed wuxuuna markiisa ugu horeysay da'da 15 jirka ah lugihiisa si caadi u noqdeen oo kabihiisa isku joog oo gashtay markii ugu horeysay ilaa 15 jir intuu ka gaaray dhibaato fara badan oo ku soo koraa leeyahay wuxuuna wadooyinka deegaanka miyiga ah ee ku yaala Rift Valley ku iibin jiray digaaga iyo looska Ruto waxa uu mar kasta sheegayaa in uu yahay nin nolosha meel hoose ka soo bilaabay
dad fara badan ayaa eedeynaya Ruto oo leeyihiin dictator waa uu xun yahay. Marka Ruto wuxuu halbeegsi ka dhigtay in xoogsatada dad xoogsata ah oo asaga oo ka dhashay, isaga oo sheegay in loo dagaalamayo waxa uu u arko qoysaskii horey u soo haystay awoodda Kenya sida Kenyatta iyo Odinga oo doonaya inay xukunka ku sii hayaan dad ayaga ay doonayaan. Taasina suuragal ma ahan ayuu dhahay. Wadanka waa inuu isbedelaa, doorashaduna waa inay isbedeshaa. Wuxuu siyaasiga Kenya kusoo beegay sanadkii 1992 ayuu kusoo biiray, wuxuuna sheegay in macalinkiisa siyaasadda uu ahaa madaxweynihii hore ee Kenya Daniel Arap Moi, kaasoo asagana isku qoys ay kasoo jeedaan. Mr Ruto wuxuu xubin firfircoon ka ahaa garabka dhalinyarada ee xisbiga KANU Moi, wuxuuna sidoo kale ka mid ahaa dadka loo xil saaray ololihii loogu ololeynayay oo lagu codeynayay in Kenya ay axsaab badan yeelato sanadkii 1992. Waa nin afhayeen ah oo aad u awood badan. Waxaa leeyahay siyaasadana aad ay u yaqaanaa. Qulubta dadka shacabka ee Kenya dad fara badan ayaa jecel siyaasadiisa iyo qaabka uu dhaqmo. Marka Uhuru Muigai Kenyatta waxaa leeyahay xilka uu ka degay, haddana wuxuu ku hadla ayuu leeyahay, xaalkana uu ku adag yahay. Ninkaas la yiraahdo William Ruto waa nin siyaasadda muddo fara badan kusoo jiro, nin adag waa leeyahay. Wuxuu sanadkii 1990 shahaadada koowaad ee culumta siyaasadda, sayniska iyo siyaasadda uu ka qaatay jaamacadda Nairobi, wuxuuna markii dambe shahaadada labaad iyo midda PhD-ga ka qaatay isla jaamacadda Nairobi ee magaalada Nairobi. Waxaa sanadkii 1997 loo soo doortay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya, waxaana looga doortay inuu waqooyiga Eldoret. Xilal kala duwan ayuu kasoo qabtay dowladda Kenya, waxaana uu ugu muhiimsanaa markii uu noqday wasiirka waxbarashada iyo wasiirka tacliinta sare ee dalka Kenya. Ruto waxa uu durbaba u gudbay jagada madaxweyne ku-xigeenka Kenya sanadkii 2013. Muddo 10 sano ah ayuuna madaxweyne ku-xigeen ahaa. Ruto wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiintii hore ee ugu tagay maxkamadda dambiyada ICJ laga dacweeyay, taasoo marar fara badan lagu eedeeyay inuu horiyay rabshadihii ka dhacay dalka Kenya sanadkii 2007 ay ku dhinteen 1200 oo qof dad gaaray. Ruto eedeymahaas oo dhan iska fogeeyay, maxkamaddii ayaana markii dambe wax dembi ah ku weyday Ruto, saas ayaana lagu fasaxay. Siyaasaddana muddo fara badan ayuu kusoo jiray. Ugu dambeyn waxaa la dhihi karaa Ruto hadafkiisii wuu gaaray. William Ruto wuxuu sanadkii 2016 ugu baaqay beesha caalamka inay taageerto go'aanadii Kenya ay ku dooneysay inay albaabada isugu dhufato xeryaha qaxootiga ee Dadaab. Ruto xilligaasi ka hadlayay arrimaha shirka bini'aadanimada ee ka dhacay Turkiga ayaa xilligaas ka codsaday beesha caalamka inay bixiyaan dhaqaalaha dib u dejinta loogu sameynayo qaxootiga ku sugan xeryaha Dadaab ee dalka Kenya. Dowladda Kenya ayaa sanadkii hore sheegtay in ay si rasmi ah ugu gudbisay in hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR inay xiri doonto xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma wixii ka dambeeya 30 bisha Juun ee 2022. Ruto waa sheegay mas'uulkii arrintaas ka hadlay, wuxuuna sheegay in taas ay dhici doonto, xeryaha qaxootigana la xiri doono. Lama oga hadda Ruto madaxweyne ayuu noqday in xeryaha qaxootiga la xiri doono iyo in warkaas wax ka bedeli doono. Marka Soomaaliyana calaaqaadka oo la yeelan karo iyo xiriirka oo la sameysan karo madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo asagoo cusub oo wadanka Kenya madaxweyne ka William Ruto, lama oga xiriirka labadooda dhexmari doono. Wixii akhbaar oo kasoo kordha wararkeena dambe dib ayaan kugu sheegi doonaa. Insha Allah waxaan ka codsanayaa YouTube-keena subscribe iyo like iyo share intaba nala wadaagtaan. Tani kulantadeena dambe oo xiiso leh. Sidaas iyo nabadgelyo.